waxaynu eegaynaa qaybteennan sida aynu u samaysanayno menus oo noqonaya markaa qaybaha kala duwan ee website-keena sida meelaha laga gelayo tusaale ahaan oo kale Somali Jobs waxaa halkaa ku qoran about us job seekers employers naca menuska kuwa sida markaa aynu u samaysanayno menuska iyo sida aynu u hoos geynayno menu sub menus markaa job seekerska waxaa hoos yaala intana hoos taala iyo isla markaa sida looga saarayo menuyada meesha ama publish iyo unpublish sida loo sameeyo tusaale ahaan kaasoo kale aan ma doonayo inaan masaxo waxaan doonayaa inaan ummadda ka qariyo ama bulshada aan ka qariyo waxaan ku sameynayaa wax la yiraahdo unpublish kuwaana sida loo sameynayo waxaan eegi doonaa page-ka contact us menu-ga la yiraahdo ee form-ka isagana sida loo sameysanayo iyo sida loo sameynayo default menu-ga guud ee sida home-ka ee page-ka markasta kuu soo baxaya sida loo sameysanayo intan haddaba si aynu u samaysano waxa aynu u baahannahay inuu aynu samaysano categories iyo articles waxa markaa inoo samaysan categoriyo iyo articles waayo kuwan waxa lagu xirayaa categorieska iyo articleska category menuskeena marka aynu samaynayna qaarkood waxay noqon doonaan qaar lagu xirayo hal article war kaliya ama qoraal kaliya qaarna waxay noqonayaan qaar la sii hoos gelinayo qoraallo fara badan tusaale ahaan wararka oo kale marka la gelinayo intaasoo war baa jira haddaad laakiin tiraahdo nagu saabsan ama ku saabsan Somali Jobs ama about us the hal page baa la gelinaya marka menuskeenu qaybo kala duwan bay yeelan doonaan waxaan ku eegi doonaa marka aynu galno systemkeena si haddaba aynu menuska u samaysano waa inaan ku jirnaa qaybtii laga maamulayo website-keena waa inay noo furnaataa qaybtii iyadana laga arkayay hadda waxaanu sameynay ee public ahayd si haddaba aynu u jeegareynay inay noo jiraan categoriyadii waxaan tagayaa category manager waxaan arkayaa marka categorieska ii jira waa ciyaaro waa mid nagu saabsan waa barnaamijyo iyo mid arrimaha bulshada ah intaas waxaan u baahanahay inaan halkaa taxano oo qof walba uu click siiyo si haddaba aynu kuwa u sameyno waxaanu tagaynaa markaa menuska ayaynu tagaynaa menuskeenu dhowr magacood u bixin kartaa main menu baa jiri kara top menu baa jiri kara aw nacmo fara badan yihiin hadda laakiin keenna waxa la yiraahdaa main menu baa la yiraahdaa haddaad menuga magaca ka bedelayso waxa la tagaa caadiyan marka menuda la maamulayo menu manager baa la tagaa marka magacyada leeyihiin magacyada waad ka bedeli kartaa intaad ku dhufato ama hal mar click si ama edit baad oran kartaa laakiin aan click siiyo magaca waan ka bedeli karaa oo waxaan doonaan u bixin karaa had iyo jeer haddaan menuga edit garanayo anyway menugana waxa la yiraahdaa menu manager baa la yiraahdaa waa menu manager dabeed si aad menu cusub ugu darto menus baad tagi kartaa waxaad dooranaysaa menu manager waxaad leedahay add menu ama main menu ku dhufo main menu ku dhufo waxaad tiraa markaa new dabeed menuga magac u bixi waxaan leeyahay tusaale ahaan kale barnaamijyo waa page-ka la gelinayo barnaamijyada nacam waxyaabaha aynu qabanno ayaynu halka gelinayna inta marka aan geliyo alliance waad iska dhaafi kartaa haddaba menuga barnaamijyada maxaa lagu guri doonaa waa noocee type-kiisu waxaad tagaysaa menu type-ka select baad leedahay waxaan leeyahay waxa la gelin doonaa articleska la gelin doonaa waa category block waa meel la gelin doono article fara badan articleskaas oo mid walba uu hordhac yar leeyahay oo read more la sii gelayo waxaan doortay category block dabeed halkaas ka soo bixi doonaa wuxuu ka odhan doonaa barnaamijyadani categorygee bay ku xiran yihiin waan u sheegayaa waxaan leeyahay waa barnaamijyadii intaa marka aan u sheego wuxuu ka odhanayaa target window-ga page-ka menuga barnaamijka marka lagu dhufto click la siiyo halkeebuu ku furmaya dee parent waad garanaysaa nacam waa page-ka kuu furan dushiisa ku fur haddaad leedahay menu cusub ku fur dee waa new menu baad waxaad leedahay new window wuxuu geenayaa markaa meel cusub buu geenayaa laakiin parentkaasi hay noo doornaato markaan magacii u bixiyo type-kii menuga aan doorto meeshuu ku xidhmaya aan u sheego menuga lagu xidhaya aad u sheegto oo isagana main menu seen hore u soo dooranaya intaa marka aad samayso halkan maxay noogu qoran waa menu item root-ku muxuu yahay parent item baan halkaa dooran wuxuu yahay marka aan ku jiro tusaale ahaan Somali Jobs haddii aan halkaa ku jiro Somali Jobs
haddaan dulgeeyo job seekerska maxaa ii soo baxaya waxaa ii soo baxaya submenus marka submenus hadaad samaynayso dee waxaad ka helaysaa marka aad tagto halkan eed magaciisa wixii bixiso halkana waxaad leedahay waxaad sii hoosgeysaa home macnaheedu waxa weeye menugan barnaamijyadu wuxuu sii hoosgeli doonaa homeka laakiin waxaan doonayaa hadda inuu banaankiisa yaallo halka parent itemka waxaan ka dooranaya marka menu item root inta markaan saa u sameeyo waa save and close okay waxaan sheegaranayaa marka inaan sameeyay waxaan ku dhufanayaa marka home baan click siinaya refresh maxaa ii soo baxaya barnaamijyadii haddii marka hal mar click la siiyo waxaad arki doontaa menuga barnaamijyada ii soo baxay wax article soo yaala meeshii ma jiraan articleska inaga hadhow gelin doona waxaan u baahanahay mid kale inaan halkaan dhigo oo ah nagu saabsan menu kale waxaan tegayaa haddana menuskii waxaan ku dhufanayaa main menu waxaan dooranayaa add new menu item waxaan u bixiyay isagana ka soo qaad ciyaaro oo kale dan waxaan dooranayaa ciyaarana maxaa geli doona article fara badan waxaan leeyahay select waxaan dooranayaa articles waxaan leeyahay blog dabadeed waxaan menugu ii dooran yahay category uu ku xirmayo ciyaaruhu baan dooranayaa oo ah ciyaaro haddaanay ku jirin waa inaad soo samaysataa intaa marka aad samaysato ee kaana aad sidaa u samaysato waa save and close waxaan ku soo daray haddana homekii ku dhufto menu kale oo ciyaara la yidhaahdo haddaad doonayso mid kale in la soo dhigo waa the same waxaan doonayaa inaan kii nagu saabsan halkaas soo dhigo waxaan tegayaa menus waxaan leeyahay main menu waxaan leeyahay new waa sida kale odhan karto dabeed waxaad oranaysaa marka halka nagu saabsan ku saabsan page-kan way nagu saabsan maaha meel ay warar badan galayaan waxa galaya hal article waxaan soo dooranayaa type-kiisa waxaan leeyahay select waxaan oranayaa articles waxaan leeyahay single article marka waa inuu ku jira page-kii nagu saabsan marka hore waxaad dooranaysaa marka article-kii lagu xidhay mid baa ii jiray creamy iyo waxaan kaga warramayo kaasaan iska dooranaya waxaan dooranayaa article kaasaan la yiraahdo baan leeyahay about asaka ku xidh creamy photos on China Russia nacam menugeeniba waxaan ku xidhanaa hadda single article ka marka aan doorto menugi iyo wixii hore way dooran yihiin inta markaan saa u sameeyo waa save and close haddaan markaa refresh gareeyo wuxuu inoo soo dhigayaa marka page-keeni ka marka haddaan ku dhufto kan imika dee single article baa ku xidhan kan oo kii creamy ahaa marka kuwana waa kuwii marnaa inaga la doonayay in marka wax soo gelina marka haddii alla yiraahdo haddaba waxaan doonayaa page-keena la yiraahdo nagu saabsan inaan soo hoos geliyo ama inaan tusaale ahaan kale nagu saabsan aan home hoos geliyaan doonaya waxaad sameynaysaa marka page-kii nagu saabsan waxaad tegaysaa menus waxaad leedahay main menu waa kuwan waxyaabihii ku jira page-keena menugeena la yiraahdo main menu waxaana ku jira waxaan doonayaa nagu saabsan ka inaan edit gareeyo nagu saabsan baan ku dhufanaya hal mar waxaan doonayaa inaan hoos geeyo homekii simply waxaan tagayaa marka halka parent itemka ayuun baan leeyahay homeka hoosgee dabeed waan save garanaya waan close garanaya haddaan marka page-kii ku dhufto hadda refresh on home ku dhufto uu kaxeeyay marka home mouse la dulgeeyo maxaa ii soo baxaya nagu saabsan haddii kaliya laga siiyo wixii ku jiray baa kuu soo baxaya haddaan home ku dhuftana waxa ii soo bixi doona dee page-kii homeka haddaan ciyaaraha doonayo inaan kaa hoos geeyo waa the same ciyaarahan ku noqonayaa click baan siinayaa waxaan dooranayaa marka parent itemkan hal mar click siinaya waxaan leeyahay ciyaaraha waxaad hoos geysaa barnaamijyada sub menu ka dhig waan save garanaya haddaan markaa ku dhufto home ciyaarihii barnaamijyadii hoos tagaya may hoos tagin let me check ciyaaraha waxaad hoos geysaa aan ku noqdo sorry kan waa ordering waxaan leeyahay ciyaaraha waxaad hoos geysaa parent itemka la yiraahdo home ama ciyaaraha barnaamijyada oo kale waxaan leeyahay save and close dabadeed homekii baan click siiyey waxba ka khaldan waan eegi doonaa waxay ku xidhan tahay had iyo jeer template-ku soo noqonayo anyway markaad doonayso in la hoos geeyo menu sub menu marka laga dhigayo waxaad dee click siinaysaa sida caadiga ah waxaad gelaysaa menuga aad doonayso in mid la hoos geeyo haddaan ka saarayo imika kaa nagu saabsan isaga ayaan ku dhufanayaa dabadeed waxaan tegayaa marka halkii parent itemka
ayaan waxaan leeyahay waxba ha hoos geyni home ka dhig nacam ha noqdo menu item nagu saabsan waxba ha hoos geyni home ka waxaad geysaa menu item ka dhig dad waan save garanaya waan close garanaya haddaan markaa ku dhufto home kayga imika uu soo baxaya kuwii kalena waa the same marka markastoo doonayso inaad kana ka saarto xaggaa la geeyo waxaan ku dhufanayaa menus waxaan leeyahay main menu waxaan ku noqonayaa markaa ciyaarihii dabadeed waxaan odhanayaa markaa ciyaarahan waxaad ka dhigtaa baan leeyahay menu item root nacam rootka ka dhig ka u sarreeya ka dhig oo banaankiisa gaar u dhig waxaan leeyahay safe and close dabadeed haddaan markaa home ku dhufto isna halkan ugu tegaya orarkaasina waa inta haddaba haddaan doonayo page-ka nagu saabsan inaan qariyo sidee baa loogu sameynaya unpublish waxaan doonayaa ku sameeyo unpublish ama aan meeshaba ka saaro haddii aad ka saarayso menu-ga meesha waxaad ku dhufanaysaa menus waxaad oranaysaa markaa main menu keebaad doonaysaa meesha in laga saaro nagu saabsan tig baad saaraysaa haddaad gebigiisaba masaxayso marka aad tig saarto waxaad leedahay trash meesha uu ka bixi doonaa haddaan ku dhufto markaa home nagu saabsan kuwaan masaxna haddaan doonayo ciyaaraha inaan qariyo oo aanay dadku arag laakiin aanan masaxayna waxaan ku noqonayaa menuskii main menu ciyaaraha markaa halkaa statuskiisa tig baa saaran haddaan ku dhufto imika hal mar wuxuu noqonayaa unpublish astrig waxaa noqonayaa calaamadii extra fuulaysa nacam haddaan ku dhufto homekii imika meesha uu ka baxaya laakiinse menugii meeshii wuu ii yaalaa markaad u baahatana haddii lasoo celinayo dee kanun baad ku dhufanaysaa publish buu noqonayaa ama tig baad saariyo publish baad odhan ama unpublish labadaana had iyo jeer waad isticmaali kartaa kaasi wuxuu noqonayaa markaa sida loo sameynayo haddii la yidhaahdo menuskaa sare naga sessionkeena waxaynu eegi doonaa sida loo sameysanayo haddii la yidhaahdo contact formkii menuga markaa isagana haddii la yidhaahdo loogu xidhayo markaa insha allah iyo sida loo sameynayo default page